بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعن وناكسن داوديال صاحبيال meel kastoo aad naga daawanaysaan iyo si kastoo aad noo daawanaysaanba kusoo dhawaada channelka Daljir Media haddii aad nagu cusub tahay waxaanu kaa codsanaynaa muuqaalkan aad sii share garaysid channelka YouTube-kana subscribe noo saartid page-ka Facebook-ga aan ku leenahay Daljir Media-na aad like iyo follow isugu dirtid aad baad u mahadsan tahay mar walba waanu soo dhaweynaa aragtiyadiina iyo fikradihiina kala duwan ee aad nala soo wadaagtaan haddii Allah awood u galo waxaan isku dayeynaa inaanu idinka qabtirno hadba mowduucyada ay daawadayaasheenu ama dadka inagu xiran ay aadka u daneynayaan haddaba caawa oo markaas ay ku beegan tahay taariikhdu 1 bisha 6 ee June sanada 2021 waxaanu isdul taagi doonaa ama isku dayi doonaa inaan faahfaahin idinka siiyo dalka Turkiga Soomaalida ku dhaqan iyo Turkida hab dhaqanka iyo isdhexgalka ay markaas sameeyeen iyo waxyaabaha caqabadaha ah ee aad u baahan tahay daawade adiga ay daawanaya isla markaasina daneynayna Turkiga u wareejid ama u guurtid waxyaabaha aad u baahan tahay inaad sii ogaatid ama sii baratid iyo waxyaabaha aad u baahan tahay inaad iska ilaalisid oo ay muhiimka tahay inaad ku dhaqmin haddaba shantii sano ee ugu dambeysay waxa dalka Turkiga u wareegay ama u guuray Soomaali aad u tiro badan xilligan la joogo waxa jaaliyada Soomaalida ee dalka Turkigu ay diiwaan gelisay ilaa iyo milyan iyo 500 oo qof oo Soomaali ay dalka Turkiga joogaan dalka Turkiga ama Turkidu waxa ay leeyihiin dhaqamo ka duwan dhaqamadeena waxay leeyihiin af ka duwan afkeena waxay leeyihiin hiddo iyo dhaqan keena ka duwan dabeecadaheedana dabcan way naga duwan yihiin haddaba bulshada ajaanibta ah ee timaada guud ahaanba dalka Turkigu waxa ay ku qabaan dhibaato aad u weyn isdhexgalka marka ay timaado bulshada loo tigay iyo bulshada timid tusaale ahaan dalka Turkigu ama dadka Turkidu kuma hadlaan luqadda Ingiriiska oo waxay ku hadlaan oo kaliya afkooda oo af Turkish ah dadka yimaada marka waxay ku qabaan dhibaato aad u fara badan sidii ay ula qabsan lahaayeen dalka iyo bulshadaasi maadaama oo aadan raaci karin taxigi adigoo aan luqadii garanaynin oo aadan waxba ka iibsan karin suuqyada isla markaasina aadan xitaa guri kareysan karin ama hotel aadan kareysan karin haddii aadan ku hadlaynin afka Turkiga inta badan dadka ajaanibta ah ee yimaada waxa ay isticmaalaan aalad loo yaqaan Google Translate ama aalad turjubana oo luqadaha la isku bedelo oo dhinaca telefoonada smartphone-ka laga isticmaalo oo loo yaqaan Google Translate haddaba taasi waa sida guud bulshada u timid Turkida iyo dadka Turkidu dhibka ay isku qabaan si gaar ah inaga Soomaali ahaan dabcan Soomaali fara badan ayaa sidan sheegaba dalkaasi ku nool oo degtay qaar guriga ka iibsadeen qaar ka kireysteen qaar caruur barasho uga dhigtaan qaar caafimaad u tageen qaarna tahriib u tagaan haddaba dadka Turkidu ma ahan dad hadal badan oo aad dadka ugu hadla ah sida ogtiina bulshada Soomaalida waa bulsho aad u hadasha oo aad u sheekaysa isla markaasina waliba aad u qaylisa ama aad u buuqa marka ay sheekeynayaan sidaas si lamida marka ama sidaas awgeed bulshada Turkidu waxa ay markaasi ay wali la qabsan la yihiin dadkan Soomaalida ah ee guryaha ka kireystay isla markaasina aadka u buuqayo oo aadka u sheekeynaya caqabadaha koowaad marka ama caqabada koowaad waxa ay tahay bulshada Soomaalida oo ah bulsho hadal ama oral society waxa loo yaqaano iyo bulshada Turkida oo aan hayn bulsho hadal badan oo sheeko badan halkaas waxa moodaa marka inuu ka yimid isfahan waa dhinaca dhaqanka ah waa tan koowaad tan labaad caqabada waxay ka taagan tahay bulshada Turkida ee loo tigay dabcan waxay caado iyo dhaqan u leeyihiin qoyskiiba inuu ka kooban yahay dad kooban tusaale ahaan guriga marka uu yahay 2 qol iyo fadhi ama 3 qol iyo fadhi waxa laga yaabaa dad ku nool inay yihiin 5 qof ilaa iyo 6 qof laakiin waxa timid bulsho Soomaali ah oo badankoodu dhalinyaro u badan oo badankoodu tahriibayaal ah isla markaasina gurigii falaadkii 2 qol fadhiga ahaa ku digaysa ugu yaraan 15 qof ama wixii ka badan taas waxay keenaysaa marka saxmad fara badan
waxay keenaysaa dhaqdhaqaaq iyo socod fara badan, waxay keenaysaa isticmaalka biyaha iyo korontada oo markaasi aad u bata, taasoo caqabad ku noqon karta qofkii guriga kaa kireeyey. walow aad adigu guriga kireysa iska bixinaysid, haddana waxa ay keeni kartaa in maxaa la yidhahdaa ay noqoto caqabad. dadka deriska la ah gurigaasina ay mararka qaarkood dacwad u gudbiyaan dhinaca booliska, iyagoo ku eedeeya in maxaa la yidhaahdaa ay Soomaalidu ay yihiin dad buuq badan, sawaxan badan, isa soo booqda oo xaafad laga yaabo inay inta maanta soo baxdo xaafadda oo dhan xaafad kale booqasho u timaado, oo ay maanta dhan buuqaan oo sheekeeyaan, caruurta ciyaaraan, la boodboodo, la buuqo. Marka waxaa moodaa inay tahay iyadana dhaqan, laba dhaqan oo iyaguna kala duwan, ama caqabada labaad oo dadka Turkidu ay ku qabaan dadka Soomaalida ah. caqabad saddexaad waxay tahay, ama dhaqanka saddexaad oo Turkidu ay leeyihiin waxay tahay, marka la raacayo tareemada iyo basaska isaga kala goosha magaalooyinka iyo xaafadaha dalka Turkiga gudihiisa ku yaala, caado iyo dhaqan waxa uu ah dadka Turkida ah marka tareenka la soo raacayo, tusaale ahaan adigoo kursiga ku fadhiyay, haddii ay soo korto qof waayeela, ama qof xaamilo ama uur leh, ama qof curyaan ah, waa inaad uga kacdaa kursiga adigoo aad fadhiday si qofkaasi u fadhiisto. Waa dhaqan ay leeyihiin dadka Turkida ah. inta badanna Soomaalidu ay dabcan yaqaanaan ama ay adeegsadaan, laakiin dhalinyarada Soomaalida ah ee dalkaasi tagtay intooda badan iyaga isku mashquulsan oo sheekeynaya, amaba telefoon ku mashquulsan yahay qofkii. Marka waxaa laga yaabaa marka, ama arkaysaa marar badan in bulshadii loo tagay ee Turkida ahayd ay la yaabaan qof dhalinyar oo fadhiya, iyadoo qof waayeela ama qof uur leh ama qof curyaan uu taagan yahay, maadaama tareenada ama tareenka ama basasku ay kuraastoodu kooban yihiin, inta badanna dadku istaag ay ku raacaan. marka taasina waa caqabad saddexaad ee Soomaalida iyo dadka Turkida kala haysata. tan kale waxa ay tahay cunooyinka maqaayadaha marka la yimaado oo kale, maqaayadaha Soomaalidu oo aad u kooban marka aad la fiiriyo magaalooyinka Ankara iyo Istanbul. marka waxaa jira maqaayado Carbeed oo Carab leeyihiin, iyo maqaayado Turkisha oo Turku ay leeyihiin, oo inta la tago cuntooyinka lagu iibsado. waxay caqabad ka taagan tahay marka dhinaca dalabaadkii, oo markaasi aan la isfahmaynin. haddii waxaa laga yaabaa qofka Soomaaliga inuu isticmaalo qaarkood Google Translate, ama ay isticmaalaan luqadda Carabiga, oo tusaale ahaan maqaayadaha Turkidu ay leeyihiin, qasab waxaa jooga qof Carabi ku hadla, maadaama bulsho badan oo Carbeed ay dalkaas degan yihiin. haddii noqon lahayd Syrian kusoo qaxay, haddii noqon lahayd Lubnaaniyiin, Algeeriyaan, Ciraaqiyiin iyo Masaari intaba. marka maqaayadaha waaweyn ee caalamiga ah ee magaalooyinka isku yaala, qasab waxaa ah qof Carabi ku hadla inuu joogo oo markaa Carabi kugu turjumo. marka waxay caqabad ka taagan tahay Carabiga naxwaha oo ay bulshada Soomaalidu ku hadlasho, iyo Carabiga lahjada ah ay markaasi ku hadlaan bulshooyinka Carbeed, oo iyaguna aad u kala duwan, ama mararka qaarkood la dhihi karo waa ay kala aragtid, ama way kala dhawaaqis duwan yihiin, waana kala mararka qaarkood kala micno duwan yihiin. iyadana waxay noqon kartaa, ama ay tahayba caqabad kale. marka talada aan caawa rabo inaan daawadayaasha dadkan ugu xiran aan siiyo waxay tahay, haddii aad doonaysid inaad u safartid dalka Turkiga, fadlan iska ilaali inaad guriga markaas aad degaysid aad markaasi buuq iyo sawaxan ka samaysid. waxay keeni kartaa in booliska lagugu waco, markaasina lagaa saaro gurigaasi, oo aan guri dambena lagaa karin, maadaama aad guriga sharci ku karaysanaysid. waxay keeni kartaa marka inaan guri kale lagaa karaynin, guriga aad deganina lagaa saaro. weliba muddooyinka hadda ugu dambeeyey dhacdooyinka noocaas ay kusoo badanayeen dalka Turkiga. laba, waxaad iska ilaalisaa inaad kursiga marka aad tareenka ama baska raacaysid aad isaga sii fadhidid iyadoo ay taagan yahay qof curyaana ama waayeela ama qof uur leh. iyadana iska ilaali. haddii ay dhacdo waxay keeni kartaa in mararka qaarkood dadka iyagoo kontrola basasku ay markaasi dhibsadaan, ama dhaqankaasi ay dhibsadaan. ma dhacdo in baska lagaa dejiyo, ama lagugu qayliyo, ama lagaa saaro, ama lagaa baangareeyo, laakiin waxaa dhici karta in aad magac xumo usoo jiidid bulshada aad adigu matashid, ama aad ka mid tahay ee Soomaalida ah. sidoo kale marka aad ku hadlaysid luqadda Carabiga ah ee aad kula hadlaysid dadka Carbeed ee markaasi Carabta ah, isku day inaad isticmaashid luqad la fahmi karo, sifo markaasi aad ugu wada xiriirtaan qaab fudud oo aad isku fahmi kartaan. intaas waa sida guud ee dhaqamada kala duwanaanshada labada dhinaca. dhinaca kale, dadka tahriibayaasha ah ee dhalinyarada u badan, iyagu dalka Turkiga inta taga kaga sii gudba qaaradda Yurub ama dalka Greega uga sii gudba,
waxaa soo kordhay ama yimid sharci cusub oo isagu mamnuucaya in loo gudbo ama loo tahriibo dalka Turkiga iyadoo laga baxayo ama dalka Greece iyadoo laga baxayo dalka Turkiga. Haddii lagaa soo qabto meel xuduud ah ama ha noqoto xuduud badeed ama ha noqoto xuduud dhuleed adigoo markaa Soomaali ah sharciga ciqaamada dalka Turkiga hayso ama ha haysanin waxaa go'aan lagu soo saaray ah in lagaa soo tarxiilo dalka Turkiga dibna aadan ugu noqon karin mar dambe oo ay fara ka qaadi doonaan. marka iska ilaali in xuduud aad tagtid adigoo aan tahriibe ahayn ama aan soconin oo aan ujeedo tahriib aan lahayn. haddii lagu soo qabto waxaa dhici doonta in lagu soo tarxiilo ismarkaasina lagaa kansalo sharcigaaga dib dambena aadan ugu noqon karaynin dalka Turkiga. waa shuruud ama shuruuc hadda ay soo rogeen dalka Turkida ama dadka Turkida ay soo rogeen ama dowladda Turkigu ay soo rogtay. sidoo kale guurka ayaa ka mid ah dib ayaan u dhigan doonaa isdhexgalka bulshooyinka iyo guurka iyo dhaqamada kala duwan iyo shuruudaha ku xiran inaad qof Turki ah guursatid ama gabar ama wiil waxaad doontid ahow. waxaan kaga hadli doonaa barnaamijka soo socda haddii Allah awood u ogolaado oo habeen dambe aanu idin soo gudbin doono. inta ayaan kusoo afmeerayaa caawa wixii aragti ama su'aalo ah fadlan qaybta hoose ee commentiga nagula wadaag. aad baad u mahadsan tahay tan iyo kulan dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo nabadgelyo nolol kulantay iyo amaano Allah salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.